السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan mar kale walaalayaal waxaanu maanta cashirkeena kusoo qaadanaynaa sida loo sameeyo IP address. haddaba IP addresska badanaa kombiyuutaradu waxay ku yimaadaan obtain ama faaruq. IP address ma laha, number ma laha. haddaba si IP address aad ugu samaysid kombiyuutarkaaga ama aad haysatid kombiyuutaro fara badan oo IP address aad u gelisid si ay u wada shaqeeyaan dhammaantooda iyagoo isticmaalaya IP address kala duwan sida 123 number ah, 101, 102, 103 sidaas oo kale tiro ah. marka IP address had iyo jeer waxaad u baahan tahay inaad gaartid ama aad kor tagtid my network places desktopka ama shaashadda markaad joogtid my network places inaad right click ku tiraahdo oo aad taabatid properties. right click properties waa sidan. markaad properties taabatid waxaa soo baxaya page kale, ogan baa soo baxaya oo sheegaya inaad haysatid laba networkii aad markaas u rabtid inaad IP address u samaysid baad kor tegaysaa oo aad ku leedahay isna right click. mar kale right click waa dhanka midig oo mouseka inaad taabatid. haddana isna waxaad taabanaysaa properties la sidii oo kale. properties baa halkaas ka taabanaysaa, waxaa soo baxaya daaqad kale. daaqadan waxay u baahan tahay inaad iyadana ka xulatid qayb ka mid ah. hoos baa u dejinaysaa falaartan, waxaad gaaraysaa ilaa meesha ay ku qoran tahay TCP/IP waa internet protocol. marka TCP-ga ama double click ku samee ama intaad isaga hal mar taabato properties leh waa isku mid. waxaa soo baxday daaqad kale oo ay ku qoran yihiin obtain an IP address automatically ama use the following IP address. waxaa ku qoran obtain an IP address, ka dhig faaruq IP addresska oo isticmaal IP address automatiga sida kombiyuutarka inaanu lahayn wax IP address oo kale, ama isticmaal IP address ka soo socda. IP addresskaas wuxuu noqon karaa 192 nambarada IP addressyada badanaa loo isticmaalo waa IP addresska uu haysto router gatewaygaaga waa inaad soo qaadatid. micnaha kan qadka ku siiya routerka, haddii shirkadda ay qad ku siiso waxaa lasoo qaataa router sida linksys ama d-link iyo waxsaas. routerka wuxuu ku siinaya marka IP address sida 192.168.2.1 badanaa waxay isticmaalaan 1 iyo 1. marka adi kaasaa halkan laga rabaa adoo isticmaalayo 100. marka server hadduu kan kombiyuutarkan aad ku samaynaysid marka koowaad hadduu yahay server isticmaal 100 ama 200 waxsaas. kan labaad isaga automatic isu keenaya marka waa subnet mask, isaga automatic isu keenaya hal mar baa taabanaysaa. adi ma qoraysid, kaas automatic waayo. default gateway adiga laga rabaa waa inaad qortid isla numberkii hore aa usoo qortay 192.168.1.1. marka kan hoosena sidoo kale aa u qoraysaa IP addresskiina halkaas ku dhisan yahay. waa bilaahi towfiiq. marka waxaa dhinacaas ku dhammaaday IP addresska. halkan waxaa xiga use the following DNS server address. DNS-ka nambarka adiga haysatid waa inaa halkan gashatid sida 213422020 19522924122 sidaas oo kale DNS-kaaga halkan ku buuxsanaysaa. markaa kadib okay baa dhehaysaa, halkaas ayayna ku eg tahay close. cashirkeena maantana intaas ayuu inooga egyahay. waa xarunta Cumar Teacher Education Center. haddii jeer markaa u baahatid waxaa booqan kartaa website-keena www.umarteacher.com. si aad u heshid macluumaad fara badan waxaad taabataa home ama video sectionka dhinaca kale
waad ka helaysid fiidiyoyaal fara badan oo af Soomaali lagu fasiray. Wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum.